Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam dhamaan walaalahay Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan. Waa markale ilaashin xabsa jira kusoo dhaca janaalkayga maanta waxaan idin wadaa saliidaas sida uu sameeyay waa saliid oo laga sameeyay moringa powder. Moringa hadda maqasheen video waxaa jira ka hadlaya faa'iidadiisa, laakiin hadda midkan waxaa waaye timaha dartiisa, midkaas kale caafimaadka iyo cunto ahaan isoo loo isticmaalaya ka hadlay. Halkan waxaan ku shubayaa dhalo nadiif ah oo si fiican u soo dhaqday oo soo qalajisay. Waxaa ku shubaysaa 2 qaando oo moringa powder ah. Moringa geed caleenta la shiido waaye, caleenta waaye. Kabacdi waxaan ku darayaa saliid olive ama saliid aad heli kartid sida qumbo. Saliid aad ku darsan kartaa. Muhiimada waxaa waaye saliidaas iyo moringaha inay isku infuse gareysmaan, inay isdhex galaan, isku dhiidhiimaan la rabaa, ma fahantay? Si ay uga soo baxdo saliid moringa ay uga soo baxdo. Marka saliid walba rabtid aad ku darsan kartaa. Faa'iidada ka helaysidna waxaa waaye moringa waxaa ku jirto vitamin A, vitamin B iyo waxaa ku jirto omega 3 fatty acids. Intaas oo dhan waxay kaa caawinayaan timaha inay aad kuugu kobciso oo tinta si fiican ay kuugu baxdo. Saliidan hadda aniga isticmaalo Spanish oil waaye, tan gasac ku jirto ayadoo caag ah waaye. Saliidihii hore oo olive Soomaali la isticmaali jiray waa saliid olive lagu qasay, refined oil waaye tan oo olive lagu qasay oo pure olive oil maahan. Mid aad isticmaali kartaa aad heli kartid. Marka si fiican iskugu qasaya ilaa saliida iyo budada ay isku milmaan oo budada aad ku reebin, ma fahantay? Si fiican iskugu qasay kabacdi waa la xareynaya, ma fahantay? Meel mugdi ah gelinaysa oo saliidan waxaa loo baahan yahay waqti dheer inay isku infuse gareysmato, ma fahantay? Marka hadda waa kaas si fiican iskugu qasay moringaha. Marka waxyaabo badan oo health benefit uu leeyahay caafimaadka marka la jirka marka la dhaho timaha marka la dhaho. Marka wuxuu ka caawinayaa timaha inay aad kuugu bixiso saliidan. Kabacdi waxaan sameynaynaa waxaan ku xareynaynaa armaajada ama meel mugdi ah ama foornada hoos hadaad isticmaalin maro inaad ku duduubtid ama hadduu mugdi yahay foornadaada aad gelinaysaa, ma fahanteen? 2 bilood kaamil anaga meel noogu jirta 2 months waqti dhow miya saasay noqotay madowgaasay noqotay saliida cagaar ay isku bedeshay. Ewl kale waxay ahayd saliid biyo ah. Kabacdi caag nadiif ah aad soo diyaarsanaysaa aad ku shubaysaa, ma fahanteen? Marka sidaas aad ku isticmaalaysaa diyaar waa saliida moringadii hadda aan isku lalabin sidii tooska ay ahayd leh ugaga shubtay. Hadaad rabtid waa ka miiri kartaa hadaad marka isku walaaqid. Marka ma isku walaaqin way kala degtay, ma fahanteen? Si fiican ayada u kala degtay. Kabacdi waa kaas salka fadhisaa ma jeedaa moringihii salka soo fadhiya. Marka waa kaas saliid intaas ay noqotay kaaliska arag timaha marsanaysa salka tinta laga marinaya. Kabacdi si fiican ugu massage gareynaysaa. Waxaan rajeynayaa qof walbo tijaabi inuu ka faa'iidi doono. Kule anaga hadda waa isticmaaloona sanadkan waxaa waaye sanadka timo kobcinta, ma fahantay? Wax walbo timaha kobcinayo waxaan rabaa inaan isku dayno insha Allah idinkana ka faa'iideysto. Mahadsantihiin. Jazakumullahu khayr.